إلهي الروحي إنه إلى سودوينا وهذا كسر شديو قدوميها معمولها مجالنا مع الخشرة إنه ضعوا شاهد محمد حاشي حتى العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وصاحب ليا وقفت شيوينها نبضيتها إياها كتنتها قبل المفروض. إسلام مرة أنا وصاحب ليا مجاعة بالشدة يدوينها خير برعو وحنو كسر ويننا مجالة يدا خير برعو. مرتين اللوجية حي مالها قدوميها ورقة قدد فليتا ابنها قراها دحاء حيالها تستوريك كانت دوان دمان إندير كراسة يا أبو يهندا دمان إرقوين كانت دوان كي من بيرها كانت دوان وحانا نولانا هاي سنية سميعة سي أوفورنانا سي لابحانانا وسولو هذا مقالة يدا مقالة برعوة مقالة ديني waxaan filayaa inaa ka arki doontaan arrintaa iyada ah ama soo dhaweynta dareenka bulshadayada oo ka muuqda dhammaantoodba waxaan intaa ku darayaa uu burburiyey awoodda ballaaran ee nooc walba oo ku isticmaalay markaa laazim bulsha wixii marka marti loo noqdo laga heli jiray ama lagu yeelan jiray haddii ay garto ama aana kalukaan waa ka cudur daaranayna waxaan nabanaynay waan usoo jeedinayaa gooyinka burco ma aha burcadii la yaqaanay waa burco maanta ka hooseysa 120 sanay dhisnayd heerkii ay lagu bilaabay ay maanta ka hooseysaa boqolaal qof ayaa ka barakacay 1920 burco qofka joogaa guri ma waayi jirin cunto kama warwari jirin nabadgelyana kama warwari jirin laakiin maanta burco qofka joogaa wuxuu ka warwarayaa hooyga iyo cuntada iyo dhaqaalaha marka waxaan odhan karaa 7 sano gudaheed ayay burco maanta ka hooseysa oo lasoo dhaafay marka haddii salug aad naga dareentaan ma aha mid sawiraya soo dhaweyn la-aan ama iyadoo aanu ku niyad samayn dabeeraha iyo ergooyinka loo yimi laakiin waxaanu leenahay ha u muuqdo annagoo ku cudur daaranayna inuu yahay mid maanta burco la delisa tusaale ahaan ergooyin fara badan oo markii hore aan lagu talagelin baa magaalada yimi waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin badan oo hoyla-aan oo hula-aan leh oo hoyla-aan leh oo cunto family ay ka dhaceen goobtan taasna runtii burco oo unkan ah oo dhaqaalaheeda daakhiliga ama ay taarikhsanaanba noo samayso laakiin waxaanu idin leenahay annagoo idinka raali gelinaynaa haddii ay dhacday hoyla-aan ama hula-aaney saaxiibayaal walaalayaal waxaa u sababa dhibaatooyinka maanta dalka guud ahaan gaadhay gaar ahaanna gobollada waqooyi sii gaadhay oo silweyne aasaas ku noqda ama saldhig ku sameeya maqsadka ummadda gobollada waqooyi waxaa ilaahay ka rajeynayaa inuu noqdo si taariikhiya oo burcada kuso aanu noqon si burca kuso waxaan ku rajeynayaa diinaha laga soco iyagana inay sidaas ayaga noogu wadaan kadib warijaan dareenkooda siyaasiga iyo gacansugaanka ay walaalahooda kusoo dhaweynayaan aadiyey iyo howla kugala kala taagan dhammaan mudanayaal iyo marwooyinka waa salaamadii meeshii waa meeshiinii waa caadigiinii isaguna guddoomiyihii guddigii qabanqaadiyey shirkan shaahid canaane islamarkaasna